ciidanka gaarka ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa xalay saqdi dhexe fuliyay howlgal qorsheysan oo ka dhacay tuulada Yumbis oo 7 kiiloomitir u jira deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalkaasi oo si xeeladeysan loo fuliyay ayaa lagu beegsaday saldhigyo ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Inta uu socday howlgalkan ayaa waxaa la qaarijiyay 8 dhagar qabe oo cadowga ka tirsanaa, waxaana ka mid ahaa horjooga sare oo lagu magacaabo Bilaal kuna caanbaxay Jaabir. horjooga Bilaal waxa uu ahaa madaxii qaraxyada ama waxa loo yaqaano mutafajiraadka ee kooxda khawaarijta u qaabilsanaa ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale hore ayuu jeegadani uga soo qabtay gobolka Gado. Bilaal wuxuu maleeshiyaadka argagixisada uu ku biiray sanadkii 2007 ilaa 2008, waxa uuna ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay falalka qaraxyada iyo argagixinta shacabka Soomaaliyeed. Qaarijida Bilaal ayaa ku timid maalin barakeysan oo shacabka Soomaaliyeed u dabaaldegayaan munaasabada 1 Luulyo, waxayna astaan u tahay sida ciidanka xoogga dalka uga go'an tahay in dalka laga cirib tiro maleeshiyaadka cadowga ummadda Soomaaliyeed ee ugus. Ciidanka waxay muujinayaan foojignaan, xirfad iyo go'aan degdeg ah, waxaana mar kale ay cadeeyeen in aysan jiri doonin meel ay gabaad ka dhigtaan maleeshiyaadka argagixisada.